madaxweynaha maamulka Hirshabelle Cali Cabdullaahi Cosoble iyo wafdi hogaaminayo ayaa maanta waxa ay soo gaareen magaalada Jowhar ee xarunta maamulka Hirshabelle waxaana magaalada si diiran ugu soo dhaweeyay qayb ka mid ah mudanayaasha baarlamaanka ee maamulka Hirshabelle maamulka gobolka Shabeellada Dhexe iyo mas'uuliyiin kale oo ka tirsan dawladda federaalka ah ee Soomaaliya wafdiga warkacayo madaxweynaha maamulka Hirshabelle Cali Cabdullaahi Cosoble ayaa waxa loo soo galbiyay xarunta uu ku leeyahay magaalada Jowhar maamulka Hirshabelle halkaas oo saxaafadda uu kula hadlay koorinta uu hadlin madaxweynaha maamulka Hirshabelle ayaa waxa saxaafadda la hadlay isla markaana madaxweynaha ku soo dhaweeyay magaalada Jowhar xildhibaanada maamulka Hirshabelle qayb ka mid ah iyo waliba maamulka gobolka iyo mas'uuliyiin kale aad waxaan ugu faraxsanahay madaxweynaha muddo badan maartay ku maqnay howlo shaqo inuu maanta maartay ku soo noqday caasimadda Hirshabelle iyo dhammaan xildhibaanada inta dhiman ay ma doonaan mar dhow waxaan maanta aan maartay ka wada qayb qaadanay hadii aan ahay dadweynaha gobolka iyo dadweynaha caasimadda degan dhammaan iyo ciidamada iyo qaybaha kala duwan oo maartay bulshada gobolka inaan soo dhaweyno madaxweynaha maadaama muddo badan uu safar ku maqnay madaxweyne waxaan ku leenahay soo dhawow aadaan maanta u faraxsanahay hadalkaygu wuu yar yahay waxaan ku leenahay mudana madaxweyne soo dhawow ku soo dhawow caasimadii in aad ka deganayd dawlad goboleedka Hirshabelle caasimadiisi Jowhar ku soo dhawow shacabkii reer Hirshabelle ku soo dhawow xildhibaanadaadii reer Hirshabelle iyo dawladdaadii quruxda badnayd waan ku soo dhaweynaynaa mudana madaxweyne ugu dambeyn Cali Cabdullaahi Cosoble madaxweynaha maamulka Hirshabelle ayaa saxaafadda la hadlay waxa uu sheegay inuu ku faraxsan yahay inuu dib ugu soo laabto magaalada Jowhar kadib safar uu u galay magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya waxaana dhanka kale uu tilmaamay in uu qaban doono arrimo dastuuri ay ka mid yihiin soo xulista iyo magacaabista xubnaha golaha wasiirada ay ka qayb noqonaya maamulka Hirshabelle runtii xogaa muddo yar oo kooban ayaan ismoogay muddada kooban hadda meel dheerna kalama inaan jirin laakiin howlo shaqo culus oo wuxuu ahaa oo bilowgeedii aan halkan ku qabanay ayadana waajibaadkeedii qaybteedii dambe ayaan u aadnay meesha la yiraahdo Muqdisho haddana insha Allah taala howlo dastuuri ah oo aan halkan inaan soo laabto ay laga maarmaan ahayd ma ahana xafladda caleemasaarkana oo dhawaan dhici doontana waa ka qayb gali doonaa waxaan rajaynaynaa insha Allah taala dawladda cusub iyo maamulka cusub iyo annaga oo dawlad cusub leh inaan isla jaan qaadi doonana Cabdi Fataax Ahmed Maclow telefishinka caalamiga ee Bulsho Jowhar